tani waxa ay muujinaysaa guulaha laga gaadhay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisaya xarumaha dalka ugu muhiimsan waxaana soconaya dhisme dib loogu dayactirayo madxafka qaranka iyadoo hadda qaybo ka mida madxafka qaranku ka soconayo dhigista mutileelka iyo rinjiga si ay u soo baxdo quruxdii uu lahaan jiray goobaha lagu dhisaya isxilqaan maalin kasta waxaa laga hayaa shaqo maalinla ah oo ay ka hayaan shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya iyadoo shaqada maantana ay ku qornaayeen shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya oo qaatay doorkooda ku aadan isxilqaan dalkaaga ku dhiso ilaahay ayaa mahadsan subxaanahu wa ta'aala oo nawaafajiyay inaan ka soo qayb galno wareegii shanaad ee barnaamijka isxilqaan dhammaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha mas'uuliyiinteeda iyo shaqaalaheeda oo mar walba diyaar u ah inay qaybta ugu horeysa ka qaataan dib u dhiska dalka agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Cabdirasaaq Aadan Guuleed waxa uu sheegay in wasaaraddu 4 jeer oo hore iyo maantaba ay si weyn uga soo qayb gashay dhismaha dalka diyaarna u yihiin in ay markasta ka qayb qaataan dhismayaasha danta guud ee dalka shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo markii shanaad ka soo qayb galay barnaamijka isxilqaan aan ognahayna kaalintii ay ka qaateen dhismaha qaranka iyo dhismooyinka qaranka horena loogu dhisay iska wuxuu qabso haddana barnaamijka isxilqaan ay ku dhisayaan shaqaalaha dhammaan wasaaradaha dowladda iyo hay'adaha dowladda oo dhan oo aan ka mid ka nahay haddaan nahay wasaaradda haweenka kaalinta aan ka qaadanayna waa la ogyahay waxaan ognahay maanta in loo fadhiyo 4tii hore oo aan soo marnay kaalimihii hore aan ka soo galnayna waan arki doonaa waa la isla xisaabtamayaa xisaab joogto ah ayaa jirta maantana si sharaf leh aan uga qayb galnay waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha dhismayaasha lagu dhisay isxilqaan waa kuwa wax weyn ka tari doona guud ahaan dalka oo dhan marka ay dib u hawlgalaan dhawaana lagu qaban doono shaqo maalmeedka qaranka Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho